Unità 4. Studio e imparo. Studio no waxbarasho le imparo waxbarasho waay. Waa study and learn. Due nuovi studenti. Laba arday oo cusub. Meeshan waxaa hadlaya professore iyo nigar iyo damis. Laba arday iyo professorkooda. Kuwa akhrina. Affetti familiari in Italia? Sì, abbiamo tutta la famiglia qui. E avete amici italiani? Sì, ma abbiamo pochi amici. I vostri genitori hanno amici italiani? Sì, loro hanno molti amici qui. Quanti anni avete? Io ho 16 anni e lei 14. Avete familiari in Italia? Sì, abbiamo tutta la famiglia qui. E avete amici italiani? Sì, ma abbiamo pochi amici. I vostri genitori hanno amici italiani? Sì, loro hanno molti amici qui. Quanti anni avete? Io ho 16 anni e lei 14. Avete familiari in Italia? Wax famiglia mia kuleedihi in Talyaaniga? Sì, abbiamo tutta la famiglia qui. E familkeenu dhan halkaanay joogaan. E avete amici italiani? Saaxiibo Talyaani ma leedihiin? Sì, ma abbiamo pochi amici. Laakiin asxaab yar aan leenahay. I vostri genitori hanno amici italiani? Waalidiintiina asxaab Talyaani ma leeyihiin? Sì, loro hanno molti amici qui. Ayaga saaxiibo badan ay halkan ku leeyihiin. Loro hanno molti amici. Loro hanno iyo waxaas meel yara ku qoran ku sharxi doonaa. Page cusub oo whiteboard oo ka mid ah meeshaan aan ku qoray waa arki doontiin. Verbo esserna waa idin xasuusihaa. Kan kalena waxaa la dhahaa verbo avere. Ayadana waa arkeysa insha Allah. Tranquilo. Sì, loro hanno molti amici qui. Ayaga waxay ku leeyihiin saaxiibo badan ay halkan ku leeyihiin. Quanti anni avete? Meeqa jiraad tihiin? Io ho 16 anni. Ani waxaa ahay 16 jir. E lei 14. Ayadana waxay jirtaa 14 sano. Io ho hadhihin. Ha'dan talyaaniga ama ashta ma lagu dhawaaqo. Ok. Metti una croce su vero o falso. Croce sar ama ha sar ama x sar verada iyo falsada. Meesha oo vera maxaa saaray x. Meesha falsa inoo falsa ku qoran. Hadday vera tahay meesha vida ha cross saare. Hadday fals tahayna meesha falsada ha cross saare. Nigar per esempio tusaale kan kowa lagu siiyey. Nigar è la sorella di Damis. Nigar è la sorella di Damis. Waa walaashiis Damis waay. Damis ay walaal u tahay. Vero waay. Nigar e Damis non hanno familiari in Italia. Nigar iyo maxaa la dhahaa isaga Damis wax family Italian ma ku laha. Maxay tahay? Falso waay. Perché waxayba dhaheen waa kana abbiamo tutta la famiglia qui. Familkeen dhan intayna joogaan. La famiglia di Damis e Nigar è in Pakistan. Falso waay. La famiglia di Damis. Familka Damis iyo Nigar è in Pakistan. Pakistan ay joogaan. No. Nigar e Damis hanno pochi amici in Italia. Saaxiibo yar ay Italiano ku leeyihiin waa vero. I genitori di Damis e Nigar hanno pochi amici. Waalidiinta oo Damis iyo Nigar dhalay waxay leeyihiin asxaab yar ay Italiano ku leeyihiin. Falso waay. Hanno molti amici qui in Italia. Nigar ha 14 anni e Damis ha 16 anni. Nigar wuxuu jiraa 14 sano. Damisna waxay jirtaa 16 sano. Yes. Io ho 16 anni e lei 14. Damis è il fratello di Dinar e di Nigar. Vero waay. Damis è il fratello waa walaalka Nigar oo la dhashay. Gabar Nigar la dhahaa Damisna waa wiilka. Sì, vero. Ok. Meeshan waxaa lagu baraa marka verbo essere. E verbo essere. Verbo essere io verbo avere. Beeshka kalena waa idinku qoray. Marka intaana meeshan gelin aveeraha waxaa waaye essere anaa ku xasuusi inta meel kale kugu qoro waa arki doontaa. Io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Waa lagama maarmaan inay xifdisid. Aniga iyo tu iyo lui iyo lei noi iyo voi iyo loro
waxaa la dhahaa magacyaalyaalka waa aniga iyo waa aniga, tu waa adiga, luy waa asaga, ley waa ayada, nooyin waa annaga, void waa idinkoo badan oo jamac ah, loran waa ayaga. marka iyo maxay qaadataa? haddii aadan ka siin iyo waxay qaadataa marka wax saxan weligaa ma sheegaysid. tanna waa diidmada. non avere io non ho, tu non hai, lui non ha, noi non abbiamo, voi non avete, loro non hanno. intaa ku arkay marka sharaxaadeeda gooniye. waxaa rabtaa inaad ahayd aniga gabra ilalto kale tusaale. haddii aadan ka siinin iyo waxay qaadato, iyo inay o qaadato, iyo inay ay qaadato, inay a qaadato, iyo inay abyaama qaadato daadan aqoonin, wax sax ma sheegaysid. tusaale hadda, iyo o una sorella, ani waxaa il dhalta gabar. inta maxaa ka maqnaa u dhaha abyaama wax lagu siiyo, inta nooyaa ka maqan. sababta oo nooyi bisa abyaama qaadato, nooyi abyaama multi amici, anaga waxaan leenahay saaxiibo badan. bitak marka ley a 23 anni, ayada waxay jirtaa 23 sano. tu ay un computer, ada waxaa haysataa computer. liz waa naag. nuna una casa, wax guri ah malaha. oo caldo, inta maxaa ka maqan? kuleel dareemaan dhahdartaa iyo oo caldo. okay, gli alunni ardayda, gli alunni ama gli studenti oo kale waay. ehe waxa waaye ayaga waa mid anosete, waa haraagsan yihiin ama omiyihiin. noi abbiamo molti amici, anaga waxaan leenahay asxaab badan. h non avete una macchina, inta maxaa ka maqan? voi, waa kana voi avete, voi avete no, voi non avete una macchina, idinka wax baabuur ma lihidin. lui maxaa dhehe? lui a, lui a, lui ha due fratelli, asaga waxaa la dhashay labo walaal. loro ayaga hanno fame, waa gaajaysan yihiin. iyo e mia sorella, aniga iyo walaashay. ehe adiga iyo walaashaa maxaa naqaysi marka? waxaa naqaysi anaga, idinkaa naqaysi mut. no, iyo mia sorella, annagaa naqayn marka, aniga iyo walaashay. ehe siamo sonno, waa hirdhifaynaa ama waa lulmohaynaa ama hurdaan hayso. noi no abbiamo, no io e mia sorella abbiamo sonno dheh, aniga iyo walaashay waa lulmohaynaa. tu e miriam, adiga iyo miriam maxaa naqaysi marka idinka? voi, adiga iyo miriam voi aa naqaysin sooma. avete un quaderno, waxaad haysatiin avete un quaderno, ma haysatiin buug wax lagu qoro. intana maxaa ku dhamaystire? cambia la frase da singolare a plurale, faraasaha ama maxaa la dhahaa isaga weedha oo singularka oo maxaa la dhahaa isaga mufradka ama keliga waxaa u bedelaya plurale. soo qaad hadda, iyo oo multi amici, aniga asxaab badanaa leeyahay. maxaa dhehe aniga dhiis mataqaana? annaga inaad dhehdeertaa noi abbiamo molti amici. lui ha la famiglia in Italia, asaga family oo Italy ku leeyahay loro. waxa dhiisaa taqaana. tu hay una bella macchina, adiga waxaa haysataa baabuur wanaagsan. lei ha fame, ayada waa gaajaysan tahay. tu hay sonno, adiga waa hurdaysan tahay. iyo oo sete, aniga waa oomanahay. okay, whiteboardka waxaa ku qoran marka aad tago aa ku tuso. verbo affaire waa kana mut, ka hadda soo barto waa iyo oo ay qaata, tu ay qaata, lui ley, lui wuxuu qaataa asaga, a uu qaataa, ley ayada waxay qaataa a, noi waxay qaadataa abbiamo, voi waxay qaadataa avete, loron waxay qaadataa ano. laga maarmaan waa marka inaa xifdisid. iyo sonno, tu say, verbo essere ha kusoo xasuusaa, aniga waxaa ahay, adiga waxaa tahay. asaga wuxuu yahay lui e. okaadi marka meeshan meeshan waxaa ajectaa saaran, talyaaniga dhibcaas yaraa saaran, ma fahamti? iyo sono, aniga waxaa ahay. tusay, adiga waxaa tahay. lui e, asaga wuxuu yahay. ley e, ayada waxay tahay. noi siamo, anaga waxaa nahay. voi siete, idinka waxaa tihiin. loro son, ayaga waxay yihiin.
tana waa verbo essere. Marka verbo essere iyo verbo affaire in la xifdiyo waa lagama maarmaan, waajib waayo. marka casharka meeshaas noo joogi doonaa. Nambarkayga oo maxaa la dhahaya isaga, ii sheeg, nambarkayga oo aa ku haysto whatsappka waa nambarkan inta aan ku qori doono hadda, hadduu ilaahay yidhaahdo. nambarkayga talyaaniga caadi waa kana 35 10 42 52 27 whatsapp. whatsappkana waa kana. Okay, I'm sorry, just give me some minutes. Number Francis waaye. Allora, eh, 33 78 011 29 02. waa ila soo xiriiri kartaa mar walbo, qofkii u baahan waa ila soo xiriiri karaa. insha allahu tacaala cashirkan meeshuu noogu doogi doonaa walaalayaal. sii sheer gareeya, like siya si anigana motivation ay igu noqoto cashir aan usoo geliyo. waa kaas biidni illahi kariim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.